horeysa waxaan loo baahan yahay inaan xusno oo aan xasuusnaano halgamayaashii iyo halyeyadii loo keenay xorriyadda u soo halgamay dhiigoodii u soo daadiyey u dhintay dhaqaalahoodii u bixiyey waxaan ka codsanahay qof walba oo halkan jooga inay istaagaan oo aan faataxad u marno inuu ilaahay jannadiisii iyo naxariistiisii siiyo munaasabadan maanta aan isugu nimid xaqiiqatan waxay muujinaysaa ummadda Soomaaliyeed shucuurtooda meel kasta ay joogaan iyo jaceylka u qabaan dalkooda iyo wadaniyadooda iyo Soomaaliya inay hor u socoto oo horumar gaartay ay tahay dal xaqiiqatan wax walba haysta wax walba u dheeyihiin haday noqoto dad haday noqoto khayraad iyo haday noqoto wax walba waxaan rabaa halkan inaan ka sheego oo aan xaqiijiyo munaasabadan iyo munaasabadihii labadii sano la soo dhaafay aan u weynaynayna sababta waxay ahayd inaan xoojino wadaniyadda inaan xoojino dawladnimada maxaa yeelay qof walba oo Soomaali ah kulli waxaan ku midownay dawladnimo kulli waxaan ku midownay hal qaran hal dal yaan ku midownay marka inaan xoojino maalintaan oo kale oo qof walba oo Soomaaliyeed uu feesteeyo weeye marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in qof walba meel walba uu joogo Soomaali meel kasta ay joogto haday tahay qurbo iyo haday tahay gudaha inay muujiyeen rabitaankooda iyo shucuurtooda iyo dareenkooda Soomaaliyeed wadaniyadu waa waxa ummadan iyo dalkan isku xiray waana mabda'a kaliya ummadda Soomaaliyeed aan isugu keeni karno maxaa yeelay waxa naga dhaxeeya hal dal ayaan leenahay oo wanaagsan Ilaahay nagu abuuray oo loo baahan yahay inaan ilaashano inaan difaacano sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celino soddon sano ku dhawaad waa xaqiiq dalka inuu burbur galay waa xaqiiq dadku inay kala tageen waa xaqiiq dadku inay dib ugu noqdeen tuulooyin waxa loo baahan yahay inaan bedelno qaabkan u fakarno tuulo waa wax yar tuulo waa wax qoys dego laakiin dal laga bilaabo loo yacado ilaa Raaskambooni adigoo haysta maxaa tuulo kugu ekeeyay tuulo maxaa kugu ekeeyay adigoo dhulka intaas leeg haysta adigoo badda intaas baaxadeeda leeg haysta waxa kugu ekeeyay tuulo oo tuulo uga jeceshahay dalka runtii waa waxa aan ka shaqeynayno inaan horumarino wadaniyadda iyo wadan jaceylka qof walba oo Soomaali ah waxa laga rabaa inuu wadani noqdo wadaniyad macnaheeda ma aha inaad ku dhalatay kaliya wadaniyad kaliya ma aha inaad Soomaali tahay wadaniyadda waxa weeye inay jecel ka hayso inaad diyaar u tahay dalkaaga inaad u dhimato inaad diyaar u tahay dalkaaga inaad difaacato weeye wadaniyaddu macnaheedu waxay tahay inaad ilaaliso sharafka dalkaaga sharafka dadkaaga inaad ilaaliso oo ay ku dhibto wax kasta oo foolxumo ah oo qof Soomaali ah laga sheegayo qof kasta waxa waajib ku ah oo Soomaali ah inuu shaqeeyo sharafka ummadiisa inuu shaqeeyo qof walba oo Soomaali waxa waajib ku ah inuu u dhinto difaaca dalkiisa uusan ogolaanin haday tahay bad iyo haday tahay bari inuusan cadow u ogolaanin cid kasta u ogolaanin haday noqoto hal mitir haday noqoto kaas weeye wadaniga marka wadaniga aan doonayno oo aan maanta intaas oo qof isugu soo saarnay
oo calaamadaha kala duwan wata oo quruxda badan waxa weeye inaan carruurteenna birri u diyaarinno intaan iyo in ka badan inaan u diyaarinno carruurteenna inaan u diyaarinno taariikhdooda carruurteenna inaan u diyaarinno inay lahaayeen aabbayaal iyo awoowayaal u soo halgamay oo dhiiggooda u soo daadiyey dalkan isku haynteeda iyo midnimadeeda sidaas darteed waxa aan samaynayno waa waxa aan ka shaqaynayno waxa soo socda waxay ku yeelan karto jiilka Soomaaliyeed ee aan dhalnay waxa kaloo loo baahan yahay inaan xoojinno dowladnimo yaa annagoo dhanna wada deeqda dowladnimo yaana wada deeqda oo aan ka dhex heli karnaa cadaalad aan ka dhex heli karnaa nolol aan kula tartami karnaa caalamka intiisa kale wax ka hooseeya dowladnimo ma aha waxaan horumar ku gaari karno haddaan horumar ku gaari karno wax dowladnimo ka hooseeya iyo qaran iyo dal 30 sano ku gaari lahayn adduunkan ugu horumari lahayn waxaan ognahay meeshaan ka taagannahay adduunka annagoo ah dad wanaagsan annagoo ah dad maskax badan annagoo ah dad firfircoon annagoo ah dad walaalo ah oo aan waxba ku kala qaybsanayn waxbana ku kala duwanayn waad arkaysaan meesha aan ka taagannahay adduunka waxay ahayd inaan ka faa'iidaysanno inaan Soomaali nahay inaan ka faa'iidaysanno dalka aan Ilaahayna siiyay khayraadka wax walba uu leeyahay inaan ka faa'iidaysanno inaan ka faa'iidaysanno waxaan isku nahay inaan ka faa'iidaysanno iyo waxaan wadaagno inaan ka faa'iidaysanno ma aha inaan isku dirno ma aha inaan isku dhibaateenno ma aha dalkeena inaan ku burburinno ma aha inaan ku kala qaybsanno ma aha inaan tuulooyin u kala baxno oo qof walba tuuloodiisii ku noqdo iyo arigiisii iyo waxarihiis waxaan leenahay dal wanaagsan waxaan leenahay sumcad wanaagsan oo aan soo marnay oo adduunku nagu karaameeyeen nagu xushmeeyeen nagu ixtiraameen waa soo celin karnaa waxaan ku soo celin karnaa midnimo Soomaaliyeed kuma soo celin karno qaybsanaan iyo qabyaalad kuma soo celin karno dowlad wanaag aan rabnay inaan xoojinno waa dowlad wanaag ku dhisan dimuqraadiyad darajadu waa meerto maalin walba qof baa jooga maanta anaa joogay shalay dad waalahana joogay birri dad kala joogi doona waa inaan difaacno waa inaan dooranno madaxweynuhu waa astaan qaran dalkuna waa astaan qaran yaa la kala saarin madaxweyne qoysa ma jiro madaxweynuhu markuu dhaartay oo doortay ummaddu wuxuu u dhaartay inuu dhaxeeyo ummaddu inuu cadaalad falayo inuu ka fogaanayo wax kasta oo ummadda kala qaybiya madaxweynuhu waa kaas dowladdiinu waa taas dowlad ha ka raadin qabiil dowlad ha ka raadin qabyaalad dowlad ha ka raadin kala qaybsanaan dowlad waa tan midaysa ummadeeda waa dan ummadeeda isku keenta waa dowlad tan difaacada dadkeeda weeye waxa weeye dowlad wanaag waxyaabahan ka shaqeeyna weeye dowlad wanaag waa waxa aan caalamka kula tartami karno waa bilawnay waxa daliil u ah inuu sheegay inaan sheegno inaan ku faanno musuqmaasuqina la dagaalno maxaa yeelay musuqmaasuq hadduu noolaado hadduu jiro mushahar lama qaadan karo inaan la dagaalno musuqmaasuq waxa caddeynaya inaysan hal bilna nagu baaqan mushaharaadka shaqaalaha rayidka iyo ciidamada qalabka sida laakiin qof walba waa inuu ilaaliyo nidaamka qof walba waa inuu ilaaliyo shaqadu waxay tahay iyo nidaamkeedu inuu ilaaliyo qofka waa inuu shaqeeyo oo uu shaqeeyo ma aha haddaad tahay shaqaale dowladeed ma aha in aad lagu siiyey wax la yidhaahdo ceer ama welfare ma aha waxaad ka mudan tahay dadkaad ka mudan tahay waxaad tahay astaan baa tahay waxaa la rabaa inaad subaxdii shaqada soo gasho aroortii wakhtiga loogu talagalay aad ka baxdo siduu ilaahay kugu og yahayna aad si wanaagsan u shaqayso waa ka hadalnay musuqmaasuqa waa cudurka dowlad burburiya waa wixiina burburiyey waa waxaan la istaagi weynay musuqmaasuq waa la dagaalaynaa waqtina ugu qaadanaysaa laakiin qof walba waxaan u sheegaynaa inay iska ilaaliyaan intaynan ceebeenin inay iska ilaaliyaan intaan la xirin musuqmaasuq waa wax foolxun waa wax aadan lahayn oo aad qaadatay waa waxaad ka qaadatay qof walaalka ah oo uu qaadan lahaa waxaan idinku boorinayaa shaqooyinkiina inaad ka adkaataan shaqo wanaagsan aad ummadda u fulisaan ummadda in loo shaqeeyo waxa intaas dheer oo dowlad wanaagga ka mid ah inaan sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed soo celinno sharafkii karaamadu madaxweynaha kaliya ma aha ra'iisul wasaaraha ma aha waa qof walba muwaadin ah
وقف والبا شرفك أمدان يدلكان يقرنكان وحساريها قف والبا ومواطن صوماليين قف قار مسارنا مدحوينه قار مسارنا برايم مينستر قار مسارنا وزير هذا قار مسارنا ميديا وعليهم دور ay ku ilaaliyaan sumcadda Soomaalida sumcadda dalkooda ay ku ilaaliyaan sumcadda dawladooda ay ku ilaaliyaan media iyo cid walbaba oo muwaadin ah mas'uuliyadaas yaa saaran inaan wada dhisano dawlad hal ah dawlad sharaf leh dawlad magac ummadda Soomaalida soo jiida inaan dhisano inaan ummadeena mideeno oo ay maanta ay noqoto maalin aan ka jawaabnay inay Soomaali ay tahay dal sharaf leh dal wanaagsan dal horu socda oo horu socdo horumar dooraya wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh